Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dadka Soomaalida ah ee dunida galbeedka jooga, gaar ahaan Yurub iyo North America, waxay dhibaato ku qabaan sida loo codeeyo iyo sida ay tahay inay u dhaqmaan marka ay laba qof ama laba xisbi tartamayaan oo ay xaq u leeyihiin inay mid u codeeyaan oo uu qofku rabo inuu mid u codeeyo. Dadka adduunkan jooga iskama codeeyaan, qofkay arkaanba uguma ridaan. Waxay ku codeeyaan wax la yidhaahdo social classka ay ka tirsan yihiin, siyaasadda uu u taagan yahay qofkaas ama xisbigaas ayay ku codeeyaan. Tusaale ahaan, dadka xoogsatada ah dabaqadda hoose ah, dabaqadda dhexe, dadka shaqeeya, dadka wixii ay soo shaqeeyaan ay noloshooda ku xiran tahay, aan lahayn lacago meel u yaalla oo dad qani ah oo lacago meel u yaallaan, oo saving leh, oo maxaan ku dhahaa, ama business leh ama ganacsi leh ama guryo waaweyn leh, ama dadka dabaqadda sare ahna axsaab la yaqaano iyo dad la yaqaano ayaa matala oo ay u codeeyaan. Inkastoo waayadan dambeeta wixii isku dhex darsameen. Waa arrinta koowaad, waa arrinta dhaqaalaha. Arrinta labaad, waxba waxay ku xiran tahay meeshaad joogto, waxaa markaas kuu ah priority-ga kuu ah iyo danta adigu aa leedahay. Waxaa jira arrimaha markiiba hore imaan kara, waxaa ka mid ah kaalimaha koowaad soo geli kara caafimaadka, waxaa ka mid ah guryeynta, waxaa ka mid ah maxaan ku dhahaa shaqada, waxaa ka mid ah maxaan ku dhahaa deegaanka iyo meesha ku nooshahay. Waayadan dambeete waxaan climate change-ka la yidhaahdo, climate change-ga iyo greenka iyo waxaas iyada xitaa safafka hore oo lagu codeeyay ku jiraan. Xagga warshadaha, dadkii hore warshadaha lahaa jiray ee hadda warshadihii ka guureen, oo deegaanadii hore ee warshad ka shaqayn jireen hadda aysan warshado lahayn, ayagu si gaar ah u fakeraan. Dadka xoolaha haystaa si gaar ah u fakeraan. Waxyaalaha kale waayadan dambe muhiimka ah waxa weeyaan waxaan immigration-ka ay yidhaahdaan iyo dadka soo galootiga